iyadoo ay rag badan ay raadinayaan sidii ay ragnimadooda kor ugu qaadi lahaayeen ayaa waxaa isticmaalaan daawooyin kuwaasoo mararka qaar laga yaaba in ay ragnimada wax u dhimaan ama cuduro abuuraan. qofka isticmaala ragga qaar ayaa isticmaala kaniiniga, qaar ayaa isticmaala saliida la mariyo xubinta iyo waxyaabo kale oo aysan ogeyn waxa laga sameeyey. haddaba ragow, ma ogtahay in ay jiraan waxyaabo dabiici ah oo aan lacag kaaga bixin ama aan caafimaadkaaga wax u dhimayn oo aad kor ugu qaadi karto tayada galmada? talooyinkan ayaan sidoo kale anfacaya dumarka. jimicsiga iyo socodka. cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in 30 daqiiqo oo socod ah ay kala bar hoos u dhigi karto khatarta kacsi la'aanta. jimicsiga iyo socodka ayaa waxay furaan isku socodka dhiigga, iyadoo taasi kor u qaadaysa kacsiga ragga iyo in ay ku daahaan hawsha galmada oo aysan horay ka abiya bixin. cuntadan tayada cuntadu isku mid ma ahan marka ay timaado galmada. kalluunka, khudaarta, galleyda, masagada iyo qamadiga ayaa ka mid ah cuntooyinka ugu wanaagsan ee kor u qaada tayada galmada. sidoo kale cuntooyinka sida hilibka, bariiska iyo baastada ayaa hoos u dhiga tayada galmada. waxaa sidoo kale galmada aad ugu fiican cuntooyinka ay ku jiraan multifitamiinka iyo khaasatan fitamiin D oo laga helo caanaha, ukunta, farmaajada iyo kalluunka. tunnida ayaa aad loo ammaanay. cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in ragga uu ku yar yahay fitamiin D ay 30% galmada kaaga liitaan kuwa kale. culeyskaaga hoos u dhiga. cayilku waxa uu kordhiyaa khatarta cuduro badan sida sonkorta, dhiigkarta iyo wixii la mid ah, kuwaasoo iyaguna hoos u dhiga tayada galmada. waxaa cilmi baaris lagu ogaaday in ragga cayilan ay 50% kaga liitaan galmada kuwa kale. haddaba haddii aad doonayso in aad galmo raaxa leh in aad hesho, cayilka iska ilaali. haddii aad cayilan tahay iyo haddii kale isku samee baaritaan caafimaad. qofba qofku ka cudur yar yahay waa kaga fiican yahay sariirta iyo galmada. qofka caafimaadka qabaa waa ka howl badan yahay kuwa kale. degdegna uma daalo. dumarku waxay doonayaan nin howlkar ah oo muddo galmada wadi kara. iska bar caafimaadka ilkaha. baaritaan ayaa lagu ogaaday in ay xiriir leeyihiin cudurada ku dhaca ilkaha iyo awoodda xubinta. weliba waxaa la sheegay in cudurada ku dhaca ilkaha ay dhaawac u geystaan xididada dhiigga u qaada xubinta. haddaba haddii aad ilkaha ka xanuunsan tahay, ogow in xubintana aad ka xanuunsan tahay.